بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. halkan maanta taariikhdu hay 30kii bishii 7aad 2012 waxaa xafiiska wasaaradda diinta iyo awqaafta ku qabanayna shir saxaafadeedkan runtii ugu horeyntiiba Allah mahadle nabiga maamuus sallallahu alayhi wasallam dalka Soomaaliland waxa uu leeyahay dastuur uu ku dhaqmo oo ku saleysan diinta islaamka. dastuurkuna ma ogola in diin aan islaam ahayn lagu fidiyo geyga Soomaaliland, midna mana ogola inay dadka Soomaaliland diintooda bedelaan. shariicada islaamka iyo dastuurka Soomaaliland kama soo horjeedo dadka ahlul kitaabku inay dalkeena yimaadaan oo ay ka shaqeystaan ama sifo sharci ah inagula joogaan, mana diidayso inay dalka ku cibaadaystaan goobihii ay hore u lahaayeen ee dhisnaa ilaa xilligii Ingiriiska 7 sano ka hor. waxaan cadaynaynaa in aanay jirin kaniisad cusub oo Hargeysa laga dhisay sida lagu faafiyay saxaafadda sawirro aan xaqiiqada ka turjumaynin oo been abuur ah. lamana ogola in kaniisad cusub laga dhiso geyga Soomaaliland. waxa cadho iyo buuq ka dhashay hadal ay gabadh ajnabi ka tiri madal lagu falanqeynayay horumarka ay keento mutadawacnimadu ama iska wax u qabsashadu oo ka dhacay jaamacadda Alfa oo loo turjuntay inay dawladdu ogolaatay dhismo kaniisad cusub oo laga dhisay Hargeysa, taasi oo ah mid aan waxba ka jirin. haweeneydaasi xafiiskeedii waxaan u qornay warqad digniin kama dambaysa oo laga digayo wixii hadal ama fal loo turjuman karo fidin diimeed. ugu dambeyntii dawladda Soomaaliland ee hadda talada haysa waxay ku suntantay kor u qaadida wacyiga diinta islaamka iyo horumarinta arrimaha diinta sida idaacadda Qur'aanka Kariimka, barnaamijyada kala duwan ee wacyigelinta diinta ee ka socota warbaahinta dawladda, ka hortagga xumaha iyo ilaalinta anshaxa, wacyigelinta xarumaha dawladda iyo jeelasha dalka, taabagelinta guddiga wanaag farista, ka qaybgalka dhismaha masaajidda iyo madrasadaha, ugu dambeynna dhismaha iyo hirgelinta xaruntan cusub ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland. loogana biqi maayo dawladdan wixii waxyeello ku ah diinteena suuban ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay. Allah mahadle wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Abdullaahi Axmed. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.